ما نركز مرة دلائس حتى يميل كسر كجوتان بالكمال داري جبان إيجي دونا إنتهى البرنامج كذا إنه ندعينه ولا لا هنا إلهي بتكدر القاضي وركوا هو وين ما أنت عيارونه وحاكم إذا كدي مركي حل رفع حمود راجعين مانشستر سيتي وكا ساسك حالا يا ولي واحد أركيسه وأنا منكي هريال كالوس هذا اللي أفريسان كران أو على ورابي جوجا ما أنت أفراد بيجوجان ولي مركات فيريسو ساعدها السؤال دن وحن بكبقياه توتنهام هدي عيارتي صوبة دي سيجي نقول له توتنهام iyo Man City saasuu la jawaab macnaha marka Man City oo le macnaha dabeecadaha noocan baa dhici jiray koox markay tiraahdo horyaalka Premier League oo 4 sano waligeed aan la qaadin baan qaada markay tiraahdo dabeecadaha noocan baa dhici jiray oo waxaad arkaysaa kooxdii oo cali waraabe la geeyay yani kaalmaha dambe la geeyay oo afaraad joogta oo shanaad joogta hadda City oo afaraad hadda joogta baa waxaad arkaysaa in mar dhawaad arki karto City hatta booska يا إنه ويسبا لقى يا بارونتيو هديه هبيك توتنهام صوب بديسو لبعض تدوب يستاهل توتنهام كوانا صدام بيستانوتي مركع عوض دين مكان صوب بديان وابلس الجواب معنا من يونايتد حتى إيمان ستحد بعض بعض حيسا مركع دبي عده نوعا وكلا ولا أرك جري مركع كوح أي هريال كإني أفريس سرطو ودبعتها دعجرتي كوح ذي بلايا كود عجرتي توبرها لقى عدين جري وسانسان لقوا أرك جري تيم كهريال كإن لقى قاضو بلايا كود عجرتي عقبه معلمين تحت كوي جرين وكا marka nimankii xalay afraad baa lagu arkay yaa waliba waxa xal ku dhahayay Man City hatta tawar uma hayso in goolkan bareejeen karta caaw bareejaha hatta caaw in la waayo waan arkaya baan watan meesha ku soo qoray yani Man City meesha wax kuma hayn ninkii ku yiraahdo Man City xal ciyaartay no maalidu waxaan arkay inuu dhahayay nin la yiraahdo wuxuu yiri ha Paris Morgan buu ahaa عيارتي من يونايتد إن نيوكاسل العري وعيار one side باي هترونتي أو هل نوع عياري هذا حالة أركتي أستون فيلا ما استهل عيار نعب عياري يوم أستون فيلا بعياري سي Man City واحد ماشي كخبة مجرين مع عيارين وير مسمينين يدي يدفع كجرتي يدي اللي وير راي معنا هذا حسكو دايما مسمين رونتي يا وحنا تسكو عدينية عيارتك كده بجورديل وأقري كحدة كوبدة أستون فيلا أنا كاس أيضا سكو لها يوم حالة كلها هاي من كاس تبرو بين حتى نقول كبرجيان أو برجع الوايد ما كله وحلاقي بين تغيير كويس لا دنيا ونكام حسيد الله يعني رنتم كل شيء جيا نمن كاس حالة عمامات أي لهاين وستي دي وجود ضعيف سنة أدولي جا أركيسو ولي ما أركيس كح كضعيف سنة كح حالة ما استد حالة عيارتي يا هذا عيارتي محور تبغى تغنى كح ذي في عناد بعد كاتب باب غاريولا يعني وين نقف في عنايين بوري أستون فيلا يا مدة كله واحد أركيس حالة عيارتها Man City in lagu tuuray 20 iyo 2 shot oo 7 target ay ahayd halka City dhan ay sameysay 2 shot xalay bal fiiri City oo dhan baa 2 shot ciyaar dhan bilaabatay dhamaatay waa sidii la quwad bay leedahay sanadka wareerinayo fahma sanadka nimanka waalaya wuxuu yiri waqtiga ay waalaye weeri haaye beeb waqti hadda waalaya dabeecadda noocan waxay ku muujinaysaa afar cid ma samayn karto weeyaan runtii dabeecadahan baa la arki jiray runtii City ma baa 2 shud xal dhan tuurtay oo ilmo yar yar oo Aston Villa hadda soo madax adkaanayo ilmo ka weyn noqonaya baa 22 shud ku tuurtay ina meesha taagneed waa dareemaysaa City in sanadkan uu galab ka yahay runtii waliba guud ahaan markaad ciyaarta fiiriso Manchester City يا لح كورنا لغو توري وحومان سمين تضرب تارجت على لغو توري لبا تارجت بي سمين لباتي لبا شو على لغو توري لو بي سمين روتي معنا ما يسحويان اي كح يا كح ما اهم با ميشا كو عياري لكن يورد كله وديدين هي انه ولي هذا ستوريال كوا كساريا نو يرمايا مجرت يرماكاس wuxuu yiri hadii qof uu City ka tirtiro ama ka saaro ku guuleysiga tartanka Premier League waxa uu leeyahay waa jogi ama kaftankii ugu weynaa historiga Maldariga horta nimanku waa loo waabsay waana sax Bruno horta ma dhaw waqti dheer aan Bruno kooxan qariga soo yar dhacaya maanta ilma yar hada Brian heeso ka soo galgali doona ya waa gaabka waa 6 un hadda inta laga saray iyaga ya waa City hal mar bay guulo xiriiri kartaa inkastoo xaal ku xun yahay laakiin wuxuu taagaya club aniga Man City sheegaysan uu yiri Man City ana garanaya nimankan ku ogaa uu gadaal ay gadoomaan jiray qaadi jiray macna horyaalka ka wada macna nimankaas ma dhintaan bay qabaan ma dhintaan bay qabaan wuxuu yiri inuu yiraahdo qof sanadan City yaa laga badiyay xalay dhibco badan bay lumis ciyaari gudumi afarta ahaa ma ideysin waraad macna war City cid horyaal ka saari karta ma la yiri macna in qof uu yiraahdo Man City horyaalkan ka hartay waa kaftanka ugu weynaa uu kamal daariga historiga arkay Pep Guardiola waa la ciyaarta dib isna wuxuu sheegay waxa la joogo xilligii aan bedeli lahaa wuri
حال كمان سيتي جوكاد هذا وبدله معناه بريان باش وانا سارنتهاي si aan u badin ciyaaraha soo aadan buure ee Luton iyo Crystal Palace nagu soo food lawri ya waa inaan badalawri habkeena waa inaan badalawri tactically Man City ay inaan keenawri tactically Man City ku guuleys wuxuu yiri tan waa lacag ku qaataa mushaarka ku qaataa waa waajibkay wuruntii inaan xal helo oo aan xaaladda aan badali karno aan guulaha ugu soo laaban karno ana lacag ku qaato ii daayro macna way arki doontaane waga warnik waa saawilay runtii wala cid waaka mid kale cid sanadka markaad aragto foogooda iyo ciidan dabaaldegooda mis qaadanayaan war ciidan horyaalo baa haya habeenid waxa uu yiri mataqaan markay ciyaar xillidan badiyeen qolkii inta la galay baa Declan Rice ay ku burreen ee ciyaartu Arsenal hareereeyeen Declan Rice ay mataqaana yaani dabaaldegoodii garoonka ka dhigeen still ila gudaha ka wadeen ila qolka tunnel markay qolkooda ay galeen kula taxta qolka darbadalashada dabaaldegiga waa la yaabo hatta Rice bay qaadayeen lahaayeen waa Rice wad nooc imaamada caawa asagu wuxuu isku bedelay Manchester City daqiiqada kan ciyaar uu bixil dambu gool u keenay team Manchester City toddobaadkanba ya waliba Arsenal sakan afar mar bay xilli dambe baxsanayaan marka waxayaan Arsenal shan arkayso ee horyaalo wahaya ee 20 sano sanadkan soo abjarta rabta ee nimanka foogoodu isma keenayaan sanadkan horyaalka Premier League waxa taala ya ninkii jiifta Siciid dibadal yaani waxa taala waa la kala tagay orod samahan baa taala ninkii jiifto waa laga tagaa hadda jaal 6 laga sareeyay Man City oo ay Arsenal ka sareysa marka waa ka kulay ciyaar walka bay marayaan midka Arsenal waxay u socotaa garoonka Aston Villa meen Arsenal lagu baqay Aston Villa waa Bruni Aston Villa waa halis laakiin Arsenal oo noocaas u ciyaaraysa Aston Villa iska dhaaf Aston Villa yaalo xataa waa garaacayaan waa Bruni maalin bay bahashu halaabi kartaa laakiin Arsenal shan arkay ee guusha u ooman ee gaajada weyn qabta war Aston Villa iska dhaafan kuri una imriyaalo iyo Douglas Luiz yaala iyo Leon Bailey yaala iyo waxaan ku tirnay waa ku Aston Villa jooga hatta ma qaban karaan inkastoo Aston Villa 14 ciyaar soo dhaafay xil guriga ugu badinaysay min Palace min Bournemouth min Nottingham min Newcastle Fulham Spurs Brighton Everton Blaze Brighton West Ham Luton Fulham City intaas xil u badinayeen haddana koonka soo aadan Arsenal bay rabeen kaga dhigaan 15 ciyaar xil guriga kaga badiyaan marka wasuna kulay ciyaar soo aadan runtii laakiin Arsenal shaas Aston Villa waa qatar laakiin aniga ma arko Arsenal Arsenal waxa ma qaba karo waa Bruni laakiin maalin baash wareeri kartaa laakiin Arsenal shaasa wala ma shaqo diyaara wana marka ku fufaya ma ahanay mid waa Rodri haduu maqan yahay waa la wareerar wur macnaa waa mar kale season kan Rodri la'aan Man City la garaacayo yaan habeenkan Rodri joogin problem ay halka jira Man United baa ku soo hartay United waa kan iska soo halaalaysanaysa ya watan ku dhahay Man United Chelsea way garaaci doontaa kooxda la garaaci waayay Man United garaaci doontaa haddana maanta macnaa waxay mudan tahay Manchester in amada lagu tuuro Chelsea wax ka qabo weyseen Manchester wax ka qabatay mid kale Manchester meel dharigta u buleynaysa Manchester waa kan iyaga 3 dhibcood u dhaxeeya ya Saudi wuxuu teena ka baray madaxa Manchester i aamina hay ugu fudaano hay raacdayn aniga kooxdan toosinay ogoona Manchester way iska halaalaysanaysa 8 kamida 9kii gool Man United xaqani gaartay hal gool ay ku badinaysa macnaha ugu yaraan macnaha laba la ku badisay laakiin farqi muxuu ahaa 1 bay ku badinayaan marna Manchester tira laba gool xataa cidna iyadoo ka dheer maanu badisay kan maxay ciyaareen 9 hal eber lay ku badinayaan macnaha ciyaarado kamida marka Man United waa iskeentay mid kale Pochettino wuxuu yiri Man United uu qalbi murguushi xalay energy weyn bayna la yimaadeen bur xalid baahi iyo gaajo weyn baa ka muuqato nimanka ka xalay mid kale Man Chelsea waa bal iska haystaayo waa Man United baa iska haysta sabahan ku dhahayo Chelsea waa laga marka laga tago inuu ku leeyahay Chelsea waa laga badin karaa hadda records markaad fiiriso Chelsea waa la haystaa waa kulankii 12aad isku xiga horyaal ah oo Chelsea inuu guul ka gaareen Man United yaani waa tan 2017 Man United guul dar kama soo gaareen Chelsea Old Trafford guul dar kama soo gaareen tan 2023 nimanka Chelsea mid kale teena wuxuu yiri bandhigii xalay ayaan idin kala mar kasta wuu u digay ciyaartu wuxuu yiri hal ciyaar sameynaysiin bandhig fiican haddana waa dhumaysiin reer dhumow idinka meelooru macnaha Manchester macnaha waxa weeyaan marna waa dhuntaa marna waa la helaa maalin way iska fiican tahay madaxa u dagan bir haddana waa dhumaysaa araaw Manchester ma aragteen cid markii ugu wardambaysaa leey runtii ya nin yulba yaani kooxda hogaaminayo magaalka sala wada marayeen teenago qaylo badan oo laga nasanay maanta jaqjaqlaynayo gafuurta ku kacsan tahay waraaw ku kacsan yahay marka way dhumayaan marka suuxurid aniga saasi ka bayro waa inaad markasta saan u ciyaarta u waa in ujeedkiinu iska cadaado sidii xalay oo kale aad u ciyaarta bandhigiina weedkii xalay uu noqdaa oo kale fiicnaa midga xalay xataa Rashford oo kaad ku tuuray nahana cunuga sarto madaxa u dago ya
وبرونيغا ما كببتا isaga dhan waxa leedahay caajis baa ka muuqda Everbass Saudi waxa uu dhahay intaqana wuxuu muuqdaa Rashford inuu siibay ciyaari la soo dhaafay isaga galabgalab muuqday ya waan kii xalay keedka lagu tuuray walo mar dambe la keenay Garnaajo wuxuu isku dayay mar kale goolkii Goodison Park ku dhaliyo kale xal inuu dhaliyo laakiin wuu la gafay bahasha oo korka marsiyay laakiin ogow حتى جولايا جلسة عياريان خياب الخطر بو هايو فرنانديز ولي بريمير ليج لابد بجول هاي مرة جورك خطي كي لواد بو يسوي هارونتي عليه تاسنا وقتها استيلين كستوتين هاك وحال جوليستي من ينسيتنا أودو يهاي أو جاب وصور ويمركن هوريال كمال في عنو كتجوجو هدانا استيل عيارة أدق باكوس السعودية اللي هرونتي ولا جاب بقى يعني كان إنه كفوا يا هذا هو حاجة دور توبرة مانشستر لافري إني كوبدل كرتنين كان شن توبرة أيام مشرحينه وحاكو جرى السدان هديتنا كوبعو waxaa ku jira Deserbi oo Brighton macalinkeeda waxaa ku jira Nagelsmann waxaa ku jira Bowter waxaa ku jira Michael Carrick ya waliska tababarayaasha ciidaha la xirinayo arimaha ku aadan still waxay war ku sheegayaan in kastoo la xaqiijiyo wali Maguire inuu ku guuleysan doono leeyahay yani maxalliday xidiga ugu fiicnaa bishii la soo dhaafay Premier League ya halka Jordi Klopp uu sheegay xalay inuu ka dhaawac Matip inuu ka dhigan yahay in Season uu ka maqnaan doono oo ninkan dhaawac ACL uu galay ACL ku dhaawac daran wakiin fadhiya Season ku maqnaanayay ya marka waxa la sheegay Jordan inuu suuqa ka doono difaac maxalliday January marka uu suuqa ciyaartooyga uu furmo hatta waxa la arkay xal inuu dhaawacmay ninka la yiraahdo Mark Alister marka Liverpool oo Jota iyo Alisson kala ka dhaacna season-koodu waa loo yaabaa haduu dhaawac socdo Alvaro Morata ayaa tilmaamay mar la weydiiyay su'aalahayd saddexda weeriyaan ugu jecesha Bruniga ya favorite ku ah wuxuu sheegay inuu Hosulu oo saaxiibkiisa hor wiri Kane iyo sidoo kale wuxuu ku tilmaamay iyo Roberto Lewandowski sidoo kale wuxuu sheegay inay mataqaana yani sanadii ugu Kane wuxuu yiri waa gool dhaliye yani aanan joojinayn bandhigiisa goolasha marka ninkaaba iyo sidoo kale Benzema sanadii ugu dambeeyay Suarez laakiin wuxuu yiri waxa iga yaabin waa Harry Kane waayadan dambe halkan jecel uu ku daawashada Lewandowski waa ka Cristiano Ronaldo waa ninka ku gaaray heerkiisa Bruniga maanta tababarka zaid ku sameeyay Andre Pirlo oo tobaadka la wareysay wuxuu mataqaan wuxuu leeyahay tababarka Ronaldo wuxuu ka dhigay inaad fahanto sida lagu noqdo number 1 adduunkan yani ninka wuxuu leeyahay sida tababarka yani u daa'imo wuxuu ka dhigayaa wuxuu ka dhigay number 1 yani wuxuu ka dhigayaa macna dad joogtayso sidii uu tababarato number 1 buu ka dhigay macna xilli Messi iyo Beckham u muuqdaan goor u dabaldegay imaanshaha Luis Suarez kaas ugu dambeeyay sheegay inuu jilbaha la yahay xanuun baabiyo ku ciyaaro waxaan ta ka baqay warshan sano soo aadanta Salah in saaxiibada shan qof la ciyaaro ka baqay laakiin saasoo tahay heesal sano ugu soo wareegay halka marka way sidii baldeeyaan baa Miami Suarez baa u imaanaya tamito sano jirkii horyaalku la soo qaaday koox xagga Madrid imaanaya Enrique kooxdiisii Palmeiras xalwalka ku guuleysteen waxaanu dhaliyay 6 gool 8 ciyaar la soo dhaafay Palmeiras uu ciyaaray taariikh buu sameeyay hatta wuxuu ka dhaliyay yani goolasha daayirnimada uu ku dhaliyay runtii waa in ka badan hatta Neymar waxa ka badan taariikhda Ronaldo oo 18 sano jirkii horyaalka Brazil kaga dhaliyay gool isaga ka badan hadda ninkan waa nin aad u khatar badan Madrid buu imaanaya waxaan inta ka dhigantahay Palmeiras wuxuu ku guuleystay horyaalkoodii 12aad ee taariikhda Brazil ogona waxa mar dambe horyal ka qaadeen Botafogo oo kooxda macnaha Diego Costa ah musiiba ku dhacday kuwa ka maadaama ay badiyaan 19 ciyaar ugu horeeyay 15 ciyaar kamida laakiin kaliya winin 14 horyaalka ku hogaamiyeen ayaa kaliya ay badiyaan markii dambe 3 jeer 17 ciyaar ugu dambeeyay waa niman 14 horyaal ku qabto hogaanka hadan laga qaaday bay ahaayeen musiiba ku dhacday xilli laakiin kooxdii Bale iyo kooxdii Neymar Santos iyana xalay u laabatay heerka hoose markii ugu horeysay historiga 111 sano kadib nabadgelyo